maareeyaha haamaha shidaalka Saleebaan Siciid Cali ayaa maanta ka warbixiyay waddo laamiya oo isku xidhaysa haamaha kaydka shidaalka iyo magaalada Berbera. Waddadaasi oo ay shaqo ballaadhan ka socotay isla markaasina gabagaba ku dhaweyd ayaa maareeyuhu sheegay inay isticmaali doonaan booyadaha shidaalka u qaada dalka. Sidoo kale waxa uu maareeyuhu sheegay inay soo socdaan mashaariico tiro badan oo kale, waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya ka mid ahaa hadalladiisii. maanta waxaa runtii noo gabagaba ah oo dhammaanaysa jidkii galayay magaalada waxaan leeyahay terminalka iyo isku xidhayay waddada dekedda oo markii hore aanu bilownay shaqooyinkii iyo mashaariicdii soconayay gabagaboobayay ah. runtiina waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inuu maanta gabagabadii marayo. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kambaniga Amal oo shirkaddii dhisaysay waana waddadii ugu horreysay iyadoo sidaa u casri laga bilaabo magaalada iyadoo waddooyin badan la sameeyay. waxaan kaloo u mahadnaqayaa maamulka dekedda oo ugu horreeya maareeyaha dekedda Injineer Cali Cumar oo runtii nagala qayb galay wax badan oo terminalka aanu ka qabanay. isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa barasaabka gobolka oo isna nagala shaqeeyay iyo xildhibaan Siciid oo xildhibaan ka mid ah golaha baarlamaanka xildhibaanadii laga doortay gobolka aad iyo aad baan ugu wada mahadnaqayaa. waana xilligii runtii mashaariicdii isbuddada 7 bilood soconaysay ee ay ka mid ahay terminalka dhisidiisa ama haamaha oo aan dib u capacity-gooda u geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo xildhibaan Siciid Cartan. shaqaalaha kale ee terminalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii waxa weeye waa arrin aad iyo aad u ballaadhan hawsha ka socotay marka terminalka waxaanay tahay waa sunnaha bini'aadanka in qofka isbeddelka had iyo jeer waxa loo sameeyo qof meel looga bedelaa meel kale loogu isbeddelka loo sameeya waa sida ciyaaro waa qoriisu dhiib in qofku marka uu meel gaarsiiyay maamul ee mid kale lagu bedelo in qofkaasina oo hore uga sii wada waa sunnaha dawladnimo iyo mas'uuliyadda qaranka oo isbeddelkaasi runtii wuxuu keenaa in qofka cusubina uu kii hore wuxuu qabtay meel markaasi qofka kalena uu kor uga sii qaado. waxa weeye runtii intii maareeyahan joogay isbeddel badan ayuu ka qabtay ama waxyaalo fara badan ayuu ka qabtay terminalka hadday tahay dayactirka haamaha deerka lagu soo wareejiyey iyo waddada laamiga ee maanta aynu joogno. anigu waxaan garanayaa waddad meeshan ilaa 1960 waan garanayaa markii shil maamulaysay dee maanta maalin la mid tahay runtii ma jirto. waa tadawur ballaadhan waxaanaanu leenahay jasaakumullah khayr. maareeyahan waxaanu leenahay khayr Allah ku siiyo ka sii kordhi waayo waxa weeye binaadamku waxaynu qabsanno ayaa wax noo ah. runtii mashruucani wuxuu gabagabadii wuxuu ka mid ahaa mashaariicdii gobolka ay xukuumaddu ka hirgelinaysay ee loogu talagalay in kor loogu soo qaado infrastructure-ka uu leeyahay gobolka. runtii maareeyuhu aad baan ugu mahadnaqayaa. runtii waa ku ammaanayaa runtii inta heeruu joogay iyo waxqabadka uu muujiyey hadday tahay xagga haamaha iyo hadday xagga gudaha tahay hadday tahay waddada nimanka aan joogno hadday tahay dayrka runtii intaaba inta heeruu joogay ayaa uu qabtay. waxaan leeyahay jasaakallah khayr horena uga sii socon leeyahay. waxayna tani gabagabo u ahayd mashruuc ahaan mashaariicdii ka socotay mataqaanaa terminalka ee loogu talagalay inay hirgalaan 14 aan soo dhaafnay. tan imika uu sheegaya dambe waa 15 noo bilaamaysa insha Allahu tacaala. intaa uu sheegay iyo kuwa kale ka badan oo u qorshaysan buu jiraan kuwa gobolka ahaan kor loogu qaadayo amba lagu bedelayo amba waxqabadkooga haddii la yiraahdo qaybka aan way yihiin. waxaan leeyahay mar labaad